macallin ayaa fasal galay wuxuuna arkay kursigii uu ku fariisan lahaa oo saqafka galaaska laga soo laalaadiyey. ardaydii intuu saa u eegay oo ku qoslay waa isagoo hadal dallicin waxa uu dhaqaaqay xagga samuuradda waxaana uu ku qoray imtixaan 15 daqiiqo iyo 30 dhibcood. haddaba weydiintii koowaad ayuu wuxuu ka dhigay xisaabi masaafada u dhaxaysa kursiga iyo sagxadda adigoo isticmaalaya sentimitir 1 dhibic buuna ku qoray. weydiintii labaad ayuu u gudbay waxaana uu ku qoray xisaabi xagasha uu kursigu kaga jiro saqafka xariijina ku muuji xisaabtaada wuxuuna ku qoray 1 dhibic. weydiintii saddexaad ayuu u gudbay waxa uu ku qoray qor magaca ardaygii kursiga saqafka ka soo laalaadiyey iyo magacyada saaxiibadii ka caawiyey 28 dhibcood ayuuna ku qoray. 15 daqiiqo markii ay dhammaatayna waxa uu ardaydii ka soo urursaday waraaqihii ay imtixaanka ku galayeen. sidaasna waxa uu ku helay qofka kursiga halkaas ka soo lulay. macnaha sheekadan macallinku si caqli badan ayuu u fahmay inaan hal arday kaliya kursiga saqafka ka soo laalaadin balse uu helay caawimaad badan oo maxay ahayd tahay arrin la isla wada ogyahay arrinkan lagu fuliyay. dhammaantoodna saasuu ku wada helay. fariinta sheekadanna waxa weeye mararka qaar caqli iyo deganaan ayaa ka fiican xanaaq. waxaan ahay ficil burkud halkaad nagala socotaanna waa degelad aan ku leeyahay baraha bulshada sida Facebook, YouTube iyo TikTok. nagu soo biir.